waa dambiile la raadinayo oo ilaa iyo hadda aan gacan lagu dhigin FBI-duna ay ku daba jirto sidii ay u qaban lahayd ninkan. Wuxuu ka mid yahay 10 qof ee wantirka ah adduunkana laga deedeeyo amase laga raadinayo. FBI-du waxay dadka u ballan qaaday haddii la soo qabto ninkan Arnando amase warbixin xog ku saabsan meesha uu joogo, qof og haddii uu jiro in la siin doono $100,000. Qisada ninkan Arnando ee adduunka laga raadinayo wantirka ah waxa uu dilay xaaskiisa iyagoo welibana ah aroos cusub. Daawade, si aad qisadan u dhamaystirato fadlan muuqaalkan ha ka ilaawin in aad like saarto sida oo kalena asxaabtaada aad u share garaysid. Waa anigoo ah Nadra Siciid. Soo dhawow daawade. Haddii aanad hore noola joogin oo aad naga daawanaysid YouTube-ka, fadlan subscribe channelkan. Haddii aad naga daawanaysid dhanka Facebook page-kana, follow si aan iskula socono markasta. Arnando waxa uu dhashay 1982, waa baxsade Mareykan ah. Waxa uu ahaa nin run ahaantii dhib badan amase falal badan oo dambiye ah galay oo farana hore uga yaaleen Mareykanka. Waxa ay isbarteen gabadh aan war ka haynin ninkani waxa uu gudo amase waxa uu galuu qabto. Noloshiisa khaaska ah amase tan u qarsoon run ahaantii waxbaba kama ogin gabadhani oo isna waxba uma sheegin. Gabadhan ayaa hore waxay u lahayd 2 caruur ah. Kadib waxa dhacday Arnando iyo gabadhan in ay ku heshiiyaan guur. Waxa ay ahayd gabadh uu soo xumeeyay ninkeedii hore ee u dhashay 2 caruur ah. Run ahaantii ma heli jirin lacag badan oo ku filan caruurtan iyo iyada nafteedaba. Waxa ay la noolayd qoyskeeda oo welibana caruurtana halkaas ay dulsaar ku ahaayeen. Run ahaantii Arnando marka ay isbarteen waxa ay istiri mas'uuliyadii badneeda caruurtan iyo welibana dhibaatadan waa aad ka bixi doontaa adigoo geli doona nolol wanaagsan. Waa sidii ku fikiraysay, laakiin waxa ay doonatay dhimashadeedii. Waxa ay ahayd mid ku faraxsan noloshan cusub ay bilaabi doonto lana geli doonto. Arnando waxa la gaaray waqtigii ay guurka ku balameen. Kadib waxa dhacday in ay xafladii arooskooda uu dhaco habeenkaas. Welibana habeenkaas waxa uu noqon doonaa habeenka nolosheeda ugu dambaysa. Qoyskeeda waxa ay ku balameen in caruurteeda 2 caruura loo keeni doono beri oo kale caawana ay tahay arooskeedii. Waxa dhacday Arnando iyo gabadhii ayaa waxa ka kala tegay dadkii. Waxa ay noqotay saq dhexe iyo welibana xilli dambe. Waxa ay xidhnayd taashkii amase dharkii arooskeeda ay habeenkaas xidhnayd. Run ahaantii muran iyo khilaaf ayaa ka dhex dhashay oo ways afdaafeen. Dhibaatadani marka ay dhacaysay waxa ay ku jireen gaariga oo banaanka yaalay amase deerka guriga. Qaylo fara badan iyo welibana is afdaaf badan kadib waxa dhacay in uu dilay gabadhii oo uu khaarijiyeyba aroosadii cusbayd. Xaaskiisii bartaasu naftii ku dhaafiyey isagoo markii dambena gaarigii ka soo jiiday. Markuu soo jiidayna waxa uu soo geliyay guriga waxaanu ku dhex riday iyadoo dhiig fara badan markaas uu ka da'ayo barkada qubayska ayuu ku dhex riday. Isaguna wuu baxsaday oo ilaa imaka lama garanayo meeluu joogo. Xaaskiisii wuu dilay oo welibana naftii ayuu dhaafiyey sababtoo ah ninkani markiisa horeba wuxuu ahaa gacan ku dhiigle dambiye badan soo galay oo aan naxaydin wax naxdina haba yaraatee amase dareen qabanayaba mabu lahaynba. Ninkani faamiliga ay gabadhani ka dhalatay ayaa waxay ka waayeen wax hadala amase kool ay la soo hadasho inantoodii, waayo waxay ku ballansanaayeen in caruurteeda loo soo qaado amase loo keeno marka ay maalin noqoto. Laakiin 3 cisho kadib markii ay ka soo wareegtay oo welibana wax hadala ay ka waayeen ayay tageen gurigii. mise waxaabay arkeenba gabadhii oo meyda oo barkad ku dhex jirta kuna dhex jirtay 3 cisho ka hor oo la dilayba habeenkii arooskeeda. Arnando waxa uu ahaa mid guriga ka maqan oo baxsaday 3 cisho ka hor. Booliskii ayay waceen. Run ahaantii baaritaan badan oo ay sameeyeen way waayeen ninkan meel uu jaani cidhib dhigay. Ninkan ayaa markii dib loo baaray ayaa wax la ogaaday in uu ahaaba nin dambiyadiisu fara badan yihiin. Waxa ayna ku dareen FBI-du liiska 10 qof ee adduunka wantirka ka ah amase laga raadinayo. Waxa ay ballan qaadeen qofkii soo qabta amase ogaado meeshuu joogo arkana in la siin doono lacag dhan $100,000. daawade commentiga nagula wadaag ma ka heshaa ma xiisaysaa oo ma tahay qof jecel faldambiyeedka ka dhaca adduunka in uu wax ka ogaado dilalka ka dhaca adduunka. Haddii aad ka hesho qisooyinka noocan oo kala ah
fadlan commentiga iigu qor si aan u soo badiyo. Daawade haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan waad ku mahadsan tahay. fadlan nagu soo biir daawade haddii aanad hore noola joogin. haddii aad hore noola joogtayna soo dhowo walaalo markasta. muuqaalkan ha ka ilaawin in aad like saarto sida oo kalena asxaabtaada la wadaagtid adigoo u sheer garaynaya.